asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. soonqaad wanaagsan daawadayaal. maalinba ta ka dambaysay soo dhowaata doorashada bisha soo socota ka dhacaysa 14-keeda dalka Turkiga. reer galbeedku waxay bilaabayaan colaadin hor leh ay colaadinayaan madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan, waxaana iska cad inay si toosa faragelin ugu hayaan doorashada, balse dowladaha reer galbeedka oo ay hogaamisa dowladda Maraykanka ah iyaga ayay noqdeen kuwa caawiyey madaxweyne Erdogan iyagoo aan ugu talagelin. madaxweyne Erdogan ayaa haatan isagu isticmaalaya kaadhkiisa wadaninimo, waxaana uu dadka Turkiga ku baraarujiyaa in ay dalkooda ku kalsoonaadaan iskana ilaawaan awoodaha shisheeye reer galbeedku ugu horeeyaan. bishii saddexaad ayay ahayd markii dowladda Maraykanka safiirkeeda u jooga magaalada Ankara uu ku booqday gurigiisa ninka la tartamaya Erdogan Kamaal Kılıçdaroğlu. xilligaa wixii ka dambeeyana taasu waxay noqotay mid wax weyn doorashada ka tarta madaxweyne Erdogan, waxaana u soo bandhigay dadka Turkida ah in ninka la tartamaya laga amro magaalada Washington aanuba ahayn in lagu halayn karo dalka Turkiga. xilligaa wixii ka dambeeyana waxaa kor u kacay saadaasha madaxweyne Erdogan iyo isagu inuu noqonayo kadib loo soo doorto. 2 toddobaad xilligaa kadibna dowladda Ruushku waxay u dirtay dalka Turkiga diblomaasigeeda ugu sarreeya. wasiirka arrimaha dibadda dalka Ruushka Sergey Lavrov ayaa la kulmay madaxweyne Erdogan, taasuna waxay ahayd fariin toos ay dowladda Ruushku u dirayso dadka Turkida oo dana badan ay kala dhaxayaan, ayna ugu sheegayso inay dib u soo doortaan madaxweyne Erdogan. dalka Turkiga ayaa waxa uu yahay dalka shanaad ee dalxiisayaasha ugu badan. dalxiisayaasha ugu badanna waxay ka yimaadaan dalka Ruushka. sanadkii lasoo dhaafay oo keliya waxaa gaaray dalxiisayaal ka badan 7,500,000 oo qof oo ka wada yimid dalka Ruushka. ruushkuna waa kuwa ugu badana dalxiis ahaan u yimaada dalka Turkiga. ma doonayaan ganacsatada iyo dadka Turkiga ahi inay waayaan 7,500,000 oo qof oo sanad walba dalxiis ahaan kuugu imanaya kuuna keenaya dhaqaalahooda. sidoo kale tiradaas ayaa waxay tahay mid sanadba sanadka ka dambeeya sii korodha. u diritaanka madaxweyne Vladimir Putin uu u diray wasiirkiisa arrimaha dibadda magaalada Ankarana waxay ahayd fariin toosoo ku socota dadka Turkida ah, uuna ugu sheegayo inuu jecel yahay inuu dib xafiiska ka talinta dalka Turkiga ugu arko madaxweyne Erdogan oo dib ugu soo noqday. haddaba 14 bisha soo socota ayay doorashada guudi ka dhacaysa dalka Turkiga, waxaana ku tartamaya madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan, gudoomiyaha xisbiga Republikaanka ah Kamaal Kılıçdaroğlu, iyo weliba ninka dhalinyarada ee lagu magacaabo Sinan Ogan oo isagu ah nin dhalasho ahaan ka soo jeeda dalka Azerbaijan balse ku dhashay dalka Turkiga. saadaasha ayaa la sheegayaa haatan inuu ku horeeya Kılıçdaroğlu oo haysta 47%, halka ay saadaashu sheegayso madaxweyne Erdogan inuu haysto 43%, balse saadaalahan ayaa waxay yihiin kuwa aan la isku halayn. 2018 waxayna ogeyn in madaxweyne Erdogan reer galbeedku ay sheegayeen inuu haysto wax ka yar 40%. ugu dambeynna isaga ayuu noqday kan ku guulaystay doorashada. sidoo kale doorashada madaxtinimada waxay ka qayb galayeen ninkii madaxweyne Erdogan la tartamay sanadkii 2018, balse ninkaas ayaa waxa uu yahay una muuqda mid aan la isku halayn karin ugu dambeynta cidda uu raacayo. reer galbeedku waxay sheegayaan inaanu jirayn musharax helaya 50% codadka loo baahan yahay wareegga koowaad. inkastoo 2008 ay sidan oo kale sheegeen Erdogan oo markiiba urursaday codad ku filan uu dib madaxweyne ugu noqdo, balse booqashada danjiraha dalka Maraykanku uu ku booqday Kamaal Kılıçdaroğlu gurigiisa ayaa waxay noqotay mid yaabgelisay dadka Turkida ah, waana qodobka ugu wanaagsan ee la filayay in dib loogu soo doorto madaxweyne Erdogan.